soo dhawaad saaxiibayaal sheeko sheeko ayaa ka qosol badan. Sheekadan hadda meeshaan idinku hayo waxaa waaye sheeko qof walba oo aqli leh macnaha ka qoslinayso. Ajaanibta koonfur Afrika ayaa waxay inta badan yaqaanaan kuwa dalalka dariska ah degan sida Zimbabwe iyo Malawi iyo adiga Mozambique iyo inta badan marka xilliga festive of seasonka la yiraahdo ayay baxaan si ay familkooda ula soo qaataan kadibna waa iska soo boodaan waa soo noqdaan. Sanadkan macnaha marka sidii hore waa ka duwan yahay South Africa macnaha drones iyo kaamarooyin iyo waxba ay howlgeliso inta badan ciidamada boodashada ilaaliya xitaa aad ay u shaqeynayeen. Road blockyo waaweyn waa leh. Waxaa la qabtay dad u socda dalkoodii oo wato affidavit. Affidavit waxaa la yiraahdaa warqad macnaha laga soo qaato police station markaas ama markii wax ka dhumaan oo kale ama markaad macnaha wax looga soo qaato police station-ka. Balse inta badan dhanka sharciga markay timaado inta badan warqadaas affidavit ma shaqeyso. Tusaale kale inta badan dadka xitaa ajaanibta ama Soomaalida kale marka warqad sharcigooda uu ka dhumo Home Affairs haday affidavit iska qaataan ayagoona wax cadeynayo waxyaabihii nambarkii ugu qornaa baasaboorka ama ID iyo waxaas aan ku qorin macnaha lagama yeelayo. Nimankan waxay sameeyeen warqad affidavit la iska soo qaato baasaboorka iga dhumay sidaas rabaan inay Zimbabwe iyo Mozambique ku galaan ama Malawi kadibna hadhow ay ku soo noqdaan haddana weliba waxyaabo la yaab kale ay ka mid ahayd. Waana badnaa weliba dadkii road blockadaas ku dhacay 120 qof la qabtay maanta bas 120kaas qof waxaa ka daran 70 ka mid ah maysan ba aqoonba baasaboorkiisa nambarkiisa waxaana ka cadinayn wax baasaboor lahayn. Marka horta warbixintan aan fiirsanayna bar horta. Won't you just give us pretty much the latest on what you're seeing on the roads? And I mean, just as well, if you can talk to these foreign nationals who have been using affidavits then as passports and how that could be happening. Okay, thank you very much, and thanks to your viewers. Yes, indeed, this is starting to be common at our roadblocks where we meet people, you meet about 10, 20, 30 people who claim that they've lost their passports. And what was really shocking was to see them having what we call an affidavit, where they went to a police station and claim that they've lost their passports and therefore they're allowed to travel and cross the borders. And the question was, how are you going to cross the border with an affidavit that is not even verified? Because remember, if I say I lost my ID, somebody should be able to verify that do I indeed have an ID. And they don't even know their passport numbers. They just make a statement in front of the Kawaran qof dhan oo dal ka baxa islaameed oo og inuu sharci darro ku joogo dalkaas oo warqad affidavit ka soo qaato rabo inuu